waxaad ku xukuman tahay in lagu xukumo maxkamad baad saaran tahay qaran Soomaaliyeed baad burburisay ummad baad baabi'isay jiil baad baraha ku daadisay qaxooti baad malaayiin ka dhigtay gaalaad malaayiin ka dhigtay yaa ka dhigay you not other one. It's not America, it's not Europe, it's not Japan, it's not Kenya, nor it's Ethiopia. It's only Somalis who killed themselves. dalkaaga iyo dadkaaga dib u dhis dalkaaga iyo dadkaaga dadkana waa dhisaynaa dalkana waa dhisaynaa dalku wuxuu inooga baahan yahay dhism dadkuna wuxuu inooga baahan yahay dhism shilinkeedii iyo miisaaniyadeediina waa inaan dawlad lagu adoonsan yabo adduunyo waa inaynu aan isku halayn shilinkeenna waa inaan bixino waxaan u baahannahay targetka u horeeya 100 milyan dawladda inaan ku taageerno sanduuq ugu shubno horta gaara laakiin waxaan hubinaynaa in dadka qaarkiis waxay ugu yiraahdeen waayo mushaharka annaga waxa bixiya dawladda kale annaga Soomaaliya kama naxday mushaharka annaga waxaan nasiya Norway baan nasiinaysaa halkaan nasiinaysaa UN baan nasiinaysaa UN maxay ku siinaysaa ma la waay biay sabab shaqayna qabato Soomaa aw shaqada ay qabanaysaa marka sheega u shaqaysaa anay ma shaqaysid marka hore u shaqay cidaan mushaar ku siisanaysa meel kale kugu siiso waxaan korkayga kugu siinay inaynu dawladda aan shilin lagu adoonsan shilin sidii dhici jirtay hadday dhab inaga tahay farxadda iyo taageerada hadday dhab inaga tahay Soomaaliya min Seattle ilaa iyo China kala daadsantihiin iyo Australia hadday dhab inaga tahay haddaan furaynaa insha Allah tacaala sanduuq aamin oo aan shilin xoolihiina ah waxaad ugu tala gasheen mooyaane gacan kale aanu aadin waa waxyaalaha aan qaban karno maanta ay noqoto caasimadii dhamayd la idin sheegayo nothing wax ka jira ma jiraan muqdisho waad maqli jirteen ma tagteen annaga tagneen weydiiyo waagay jirtay ma jirto magaalo la yiraahdo muqdisho ma jirto waa magac xaafadaad maqashaan warshada baastada boondheere hodon مش عارف ايش بالفرق كده وحجرا مجران ودنبس وي يا دنبس كدي كو هدا جوله oo ku dagaalamaya waxa looga shaqeynaya wadanka waad ogtihiin meel qaarkood khaasatan caasimada dhibaatooyin baa ka jira in la shaqeeyo ciidamada nabadgelyada amniga ciidamada xoogga ciidamada booliska ciidamada nabadgelyada in la shaqeeyo oo haddii shacabka ay ka dalbadaan xaafadaha jidadka magaalooyinka meelahooda inay ummadu ay ilaaliso inay ka warqabto inay la socodsiiso inay ciidamada garab u noqoto inay maaragtay kala shaqeeyaan ciidamada iyo dawladana waxa laga rabaa hanaankii inay la yimaadaan ay uga faa'iideeyaan maxaad ilaahay ugu jawaabaysaa maxaad ilaahay ku oranaysaa dalkan wuu buuxaa dahab ka buuxaa xoolo ka buuxaa waxa lagugu dhiibay mas'uul lagaaga dhigay inaad dadka inta u soo saarto aad u qaybiso oo aad u shaqayso isaga haddaan shaqada qaban karin laga tag naftaada ugu mid dhagayso labadan xadiis dab wala soo banaan baxay magaalooyinka oo dhan baa laga soo baxay rag iyo dumar iyo caruur banaanka loo soo baxay kaas waa dareenkii laakiin waxa loo baahan yahay dareenka iyo farxadda in loo bedelo shaqo in loo bedelo amal in loo bedelo taas bay dawladdu ku noqon kartaa mid waxtar u noqota maxaynu marka kala shaqayn karnaa horta waxa ugu horeeya oo aynu kala shaqaynay dhowr qodob baan tilmaamiyay ilaa 4 qodob qodobka koowaad waxa weeye inaynu kala shaqayno horta taageerada qalbiga ah oo niyadda ah
oo u hoggaansanka ah oo taag